maadaama tii guddigooda hadalka Soomaaliya xukuumadda Soomaaliya ka mid yihiin oo maxay mowqifkeeda ka tantiin heshiiska dhexmaray Soomaaliya iyo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan filayaa taas inaan wax cusub hayno hawada watii laga wada hadlay malaha wixii sidii kala cid wax u dhigto waa meesheeda laakiin hawada agreement baa laga gaadhay inaynu hawada Somaliland laga maamulo hawada Somaliland iyo Soomaaliya laga maamulo guddi dhexana loo sameeyo labada daraf ka kooban oo waxa weeye inana aynu leenahay badhiyana ay bad leeyihiin wixii ka soo baxana equal share loo qaybso saasa heshiiska ku qoran markii labaadna heshiiskii dambana sidii baa lagu honorgareeyay duniduna kaasay aqbashay marka waxa weeye de qofkii kale wax kale iska yiraahday isaga yiri anagu heshiiskii Soomaaliya aan wada galay waxa hawada in laga maamulo Hargeysa maamulkeedana sida iyo dhaqaalaheeda loo share gareeyo oo yani loo qaybsado si equal share loo qaybsado hawadii Somaliland iyo Soomaaliya oo aan isku jirin sidaasana saasa loo maamulaya meesha la yaahdo wixii heshiisyo lagu galo Muqdisho anagana waxayaan anagu dal madax banaan oo u madax banaan resourcekiisa iyo maamulkiisa iyo siyaasadiisa ayaanu dunidana dawaadiga arkay dunida maamul baa noo timaada waan la dhil gareynaa heshiisyan la galaa qofna ma weydiino cidna fasax uga qaadan mayno wixii danaha yaga iyo dalkayaga cidna fasax uga qaadan mayno Nicholas Key ambassadorka qaramada Yurub qaabilsan Soomaaliya guud ahaan wadinka xiriirkii uu ficneen waxa la leeyahay dagaalka inta badan isaga wada oo maxay qorshe xukuumadda Soomaaliya ku aadan ambassadorka wali Hargeysa niman carada kala tagteen xafiiskeedu inta qaramada Hargeysa ka furan lahaa buugaasi wal ma jirto cara noo dhaxaysa Nicholas Key oo Somaliland iyo isaga u dhaxayso gaaray kaliya waxay Somaliland diiday xafiis Soomaaliya u adeegay inaan Hargeysa laga furin oo Soomaaliya u adeegay inaan Hargeysa laga furin Somaliland taasay diiday Nicholas Key waa nin qaabilsan jamciyadda qormaha ka dhaxaysa u qaabilsan arrimaha Somaliland iyo Soomaaliyaba wixii macaamilada kale iyo wixii wada shaqo kale ee aan qadiyada Somaliland waxba yeelin iyo waxa weeye dalkan yani shuruucdiisa iyo jiritaankiisa waxba yeelin ee mucaamilada danta Somaliland ku jirto oo kala shaqeynaa mushkiladna wasiir waxaan doonayaa hal su'aal in ku weydiiyo halkan waxa ku dhantay guddiga Somaliland matalayay wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya in kulankaas ku timaadeen maanta wuxuu daaran yahay dabcan da shaqadiina loo xil saaray ahayd inaanu ka shaqeyno u sii diyaar garowno wada hadallada wax iska sii weydiino ayuunbay khusuuso da shaqo day to day oo noo dhaxaysay bay ahayd oo wasiirkii khaarijigu noogu yeedhay inaanu yani taladii sii urursano anagu yani iswareysano dadka kale ee reer Somaliland ama ha noqdo civil society ama noqdo sida imka dhalinyarada joogta ku arkaysaan aan wixii tala iyo tusmay hayaan la share gareyno weydiino wareysano kadibna anagu aan de talabo anagoo diyaarsan aanu tagno wada hadallada insha Allah ta'ala